gobolka Badhan. wafdigan oo isugu jira salaadeen cuqaal waxgarad culimo awdiin iyo siyaasiyiin ka soo jeeda gobolka Badhan oo soo gaaray magaalada Hargeysa ayaa waxaa duleedka magaalada Hargeysa ku soo dhaweeyay wasiirka wasaaradda gaashaandhigga iyo ku-xigeenka wasaaradda macdanta Somaliland waxaana halkaasi ay ka jeediyeen hadallo soo dhaweyn iyo mahadnaq iskugu jira wasiirka wasaaradda gaashaandhigga Somaliland oo ku hadlaya magaca xukuumadda iyo magaca shacbiga Somaliland ayaa sheegay in si diiran ay wafdigan u soo dhaweynayaan wafdiga sharafta leh oo ka yimid bari sanaag oo hogaaminayo suudaanka guud oo mandaqada bari sanaag dadka dega waan soo dhaweynaynaa waxaan leedahay kaliya laaban laydinku soo dhaweynaya magaca dowladda anigoo ku hadlaya iyo magaca shacbigaba oo jecel mar walba in dadku wax wada yeesho aanay waxba kala yeelan waxaan filayaa waa tawfiiq baa ilaahay ka dhigi doonaa socodkiina wasiir ku-xigeenka wasaaradda macdanta Somaliland oo isaguna halkaasi ka hadlay ayaa aad uga mahad celiyay socdaalka ay ku yimaadeen wafdigani magaalada Hargeysa kaasi oo sheegay in ay ka dambeysay kadib markii madaxweynaha Somaliland ay ka heleen martiqaad rasmi ah xubnaha wafdigan soo gaaray magaalada Hargeysa oo hogaaminayo suldaanka guud ee gobolka Badhan Suldaan Siciid Suldaan Cabdisalaan ayaa aad ugu mahad celiyay xubnaha xukuumadda ka socday ee ku soo dhaweeyay duleedka guud ee magaalada Hargeysa suldaanka iyo wafdiga uu hogaaminayo wasiirada la soo dhaweeyay oo Hargeysa lagu soo dhaweeyo halka nagaga hor yimi aad iyo aad oo beesha u dhashay aad iyo aad bay u mahadsan yihiin waxaanu anagu u nimi martiqaadaanu ka helay dowladda madaxweynahaanu ka helay baanu u nimi horena waa u iman jiray haddana waa nimi magaaladuna waa magaaladayadii martiqaadkaasaanuna ku nimi wasiirada la soo dhaweeyeen aad iyo aad bay u mahadsan yihiin wixii dambena waa ka wada hadlaynaa wasarkayna wafdigan oo hogaaminayo Suldaan Siciid Suldaan Cabdisalaan geesta kale waxaa loogu sameeyay magaalada Hargeysa